maamulka qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho ayaa ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya barnaamijka Cafe with Alumni qaybtiisa 20aad. waa barnaamij bilo ah oo hadba halka ay joogaan loogu geeyay ardaydii ka baxday jaamacadda si ay isku bartaan isuna weydaarsadaan aqoontooda. barnaamijkan oo uu ka qayb galay gudoomiyaha jaamacadda Dr. Ibrahim Maxamed Mursal xaadirna ay ahaayeen mas'uuliyiin kamid ah qalinjabiyaasha jaamacadda oo shaqo deegaan iyo waxbarasho u jooga dalka Kenya ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya jaamacadda iyo qalinjabiyaasha. sidoo kale waxaa barnaamijka lagu lafaguray sidii qalinjabiyaasha uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta bulshada, kor u qaadista tayada waxbarashada dalka, cilmi baarista iyo caawinta ardayda soo haya jidkii ay ku yimaadeen oo laga yaabo mararka qaar inay u baahdaan garab qabasho. gudoomiyaha jaamacadda Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo kelimad kooban ka jeediyay kulanka ayaa qalinjabiyaasha uga warbixiyay xaaladda guud ee jaamacadda, sida horumarada ay gaartay, higsigeeda iyo halka ay u socoto. qalinjabiyaasha jaamacadda ayaa iyana fursad u helay inay aragtidooda ku beeriyaan sidii loo sii dardargelin lahaa horumarada muuqda oo ay jaamacadda ku tallaabsatay, iyaga oo talooyinkooda ka sokow weydiimo ka guuxaya maankooda hordhigay gudoomiyaha. barnaamijka Cafe with Alumni ama la qaxway qalinjabiyaasha waa barnaamij ujeedadiisu tahay in qalinjabiyaasha jaamacadda isku weydaarsadaan aqoon iyo waayo aragnimo. waxa uuna qayb ka yahay barnaamijyada kala duwan ee maamulka qalinjabiyaasha jaamacadda muqdisho ugu talagalay ardaydii ka qalin rogatay jaamacadda tan iyo markii la dhagax dhigay.